maanta way cibaadaysteen sidii lagu yaqaanay waxa qacad muddaciskoodii waxa soo baxay war kale oo sheegaya dagaalka shalay ka dhacay laasanood inuu ku dhintay taliyihii hogaaminaya dagaalamayaasha wanta oo marka lagu magacaabi jiray Cabdirashiid Qodhob waa kana sawirkiisa idin muuqda inkastoo warkaasi aan si sax ah aan loo xaqiijin laakiin waa tuhunka iyo hadalhaynta maanta ka jirta gudaha wanta iyo gudaha laasanood taliyahan ayaa dhawaan wax loo magacaabay inuu hogaamin doono dagaalamayaasha wanta kadib markii dagaalka iyo hogaaminta ku fashilmay markii la isku geeyo wadarta guud dadkii ku waxyeeloobay dagaalkaasi waxay kor u dhaafayaan dhimasho iyo dhaawac markii la isku geeyo waxay kor u dhaafayaan in ka badan 80 saacadii ugu dambeysana gaalkacyo iyo Garowe waxa la gaarsiiyay dad ku soo waxyeeloobay dagaalka shalay ka dhacay laasanood jeermiskii baan meesha ku sabat afar baa waxa la sinayma ku saaca ubadiya wallahi Allah ni ragay waxa ku dhacay wariya dhaawacoodii saaqan ciidamada huwanta ka dagaalantay laasanood dagaalkii dhacay shalay iyo habeen hore waxa ugu dhintay saraakiil markaasi ku dhow sidaan ka soo xiganay ilahaasi saraakiil ku dhow 10 sargaal oo markaasi midba midka kale uusan ka dhicin saraakiishaas markii hore ka yimid maamulkaasi Puntland halka kuwa kale ka yimaadeen dawladda federaalka Soomaaliya markaasi qaab beeleysan u soo gala dagaalkan hadda ka socda laasanood dagaalka shalay ka dhacay laasanoodna markii la eego qasaaraha soo gaaray dagaalamayaasha huwanta iyo bari culusta waxay u ahayd maalin madow laguna jabiyay kibirkii bari culusta waxayna dhadhamiyeen xanuunka ay leedahay durbaanka colaad iyo qabiilka ay tumayeen 8 bilood ugu dambeysay bari culusta horena Soomaalidu waxay u tiraahdaa kibir ma jabe ee ninkiisa ayaa jaba hadii ay gacantooda soo gali weyso laasanoodna markan waxay u arkaan inay ka difaacaan Garowe hadii laga soo saaray ayaga laasanood waxa si toos ah loo tagi doonaa Garowe oo ah halka laga hornayo colaadda Soomaaliland iyo colaadda laasanood saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan hal fogeeyo si oo meel fog gaar waxaan idinka dabageenayaa dagaalkii shalay iyo habeen hore ka dhacay laasanood sidaan shalay aan idin soo gudbiyay dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal culus wuxuuna kamid ahaa dagaalada ugu cuslaa ka dhacay laasanood tan iyo markii dagaalkaasi uu bilaabmay haddana laga joogo dagaalkaasi markuu bilaabmay muddo ka badan 8 bilood qorshihii dagaalkana huwantana wuxuu ahaa dagaalkii ay soo qaadeen habeenimo dagaalkaas oo ay ku doonayeen dagaal xirijiira inay ku qabsadaan fariisamaha iyo aagaga laga waardiyeeyo gooja cadde aagaasna ay ku adkaataba inay qabsadaan iska daayay inay foodooda soo galiyaan soonahaas iyo aagaasi laga waardiyeeyo gooja cadde dagaalkan ay soo qaadeen habeenimona waxay kala kulmeen jab iyo fashil iyo xanuun laga soo gaarsiiyay dagaalkaasi xanuunkaasna wuxuu sababay inay mar kale subaxii dagaal ay soo qaadaan dagaalkaasi soo qaadeen dagaalamayaasha huwantana waxa ka soo gaaray mar kale qasaare 3 jibaaran qasaarihii soo gaaray dagaalkii ay qaadeen habeenimo dagaalkaas oo ahaa dagaal xirijiir ah dagaalka shalay ka dhacay laasanoodna markii la eego qasaaraha soo gaaray dagaalamayaasha huwanta iyo bari culusta waxay u ahayd maalin madow laguna jabiyay kibirkii bari culusta waxayna dhadhamiyeen xanuunka ay leedahay durbaanka colaad iyo qabiilka ay tumayeen 8 bilood ugu dambeysay bari culusta horena Soomaalidu waxay u tiraahdaa kibir ma jabe ee ninkiisa ayaa jaba tamaada qasac ay dhulku noqdo tamaada qasac adii bariga horta soo jirtay markiisa tii u ban mudi waan bisbisay kulmas oo yaa wala Allah ma xanu qoriyo furanay qinaamo way وانا يبادين وبادي هو باضي معايا شاد كانوا نقصوا كتير شاد كانوا يا قولي مركز انا قولي ساسو كوكتي كو كلا قول درا ولا درس ولا درس هو يقول والله حنيو لكن شيء كان خير حنيو كواي خلدين haddana idin soo koobo qasaaraha u soo dagaalkii shalay ka dhacay laasanood goobjoogayaal ku sugan gudaha laasanood waxay noo sheegeen ama waxaan ka soo xignaba dagaalkii shalay ka dhacay laasanood markii si loo eego wuxuu ahaa dagaal halaag ah ciidamada huwanta ka dagaalantay laasanood dagaalkii dhacay shalay iyo habeen hore waxa ugu dhintay saraakiil markaasi ku dhow sidaan ka soo xiganay ilahaasi saraakiil ku dhow 10 sargaal oo markaasi midba midka kale uusan ka dhicin saraakiishaas markii hore ka yimid maamulkaasi Puntland halka kuwa kale ka yimaadeen dawladda federaalka Soomaaliya markaasi qaab beeleysan u soo gala dagaalkan hadda ka socda laasanood muddo ka badan 8 bilood waana saraakiisha ugu badnaa hal dagaal gudaheeda ugu dhintay dagaalamayaasha huwanta tan iyo markuu bilaabmay dagaalkan hadda ka socda laasanood marka halkaas waxa kaga muuqata muhiimadda uu lahaa dagaalkani shalay iyo habeen hore ay qaadeen dagaalamayaasha huwanta awoodooda ayaa halkaas dhigta ma ahan ayagu dhankooda waxay la hagaradeen habeeraatay ma jirto shalay iyo maanta iyo xalana dagaalamayaasha huwanta waxa u daarneed heystii ahayd danta ay sheegtay ragnimo ma waayin
sidoo kale laascanood maanta waxaa laga soo warinayaa saaka inuu mar kale dagaal halkaas uga qarxay walow uusan dagaalkan maanta uusan ahayn dagaalkii shalay uu dhacay xoogiisa markii la eego iyo sidoo u socdo dagaalkan maanta mar kale ka qarxay laascanood weli waxaan ku jiraa khasaarihii shalay ka dhashay dagaalkii shalay iyo habeen hore ka dhacay laascanood markii la isku geeyo wadarta guud dadkii ku waxyeeloobay dagaalkaasi waxay kor u dhaafayaan dhimasho iyo dhaawac markii la isku geeyo waxay kor u dhaafayaan in ka badan 80 saacadii ugu dambeysana gaalkacyo iyo Garowe waxaa la gaarsiiyay dad ku soo waxyeeloobay dagaalkii shalay ka dhacay laascanood sidoo kale isbitaalada ku yaala laascanood iyo kala beerna waxaa la gaarsiiyay dhaawacyo ku soo waxyeeloobay dagaalkii saddexda geesoodka ah shalay ka dhacay afaafka hore gudaha magaaladaasi laascanood sidoo kalena khasaaraha gaadiid ee soo gaaray dagaalamaasha wanta sidaan ka soo xiganay ila ku sugan gudaha laascanood hadda xitaa codkooda waan idin maqshin karaa laakiin sababo amni darteed ayaan codkooda aan ii maqshin karin ilahaas ku sugan laascanood waxaan ka soo xiganay dagaalkii shalay ka dhacay laascanood in halkaas loogu gubay dagaalamaasha wanta gawaari markaasi gaaraysa 12 gaari oo markaasi ku jira nooca dagaalka iyo nooca raaxada iyo kuwa waaweyn markaasi la saaro hubka nooca loo yaqaano suuga waana khasaare ugu badnaa soo gaaray dagaalamaasha wanta tan iyo markii dagaalkan uu bilaabmay markii la eego dhan kasta dagaalkii shalay khasaare uu sababay waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya dagaalkii shalay ka dhacay laascanood inuu ku dhintay taliyihii hogaaminaya dagaalamaasha wanta oo marka lagu magacaabi jiray Cabdirashiid Qodhob waa kana sawirkiisa idin muuqda inkastoo warkaasi aan si sax ah aan loo xaqiijin laakiin waa tuhunka iyo hadalhaynta maanta ka jirta gudaha wanta iyo gudaha laascanood taliyahan ayaa dhawaan wax loo magacaabay inuu hogaamin doono dagaalamaasha wanta kadib markii dagaalka iyo hogaaminta ku fashilmay isaga taliyihii ka horeeyay oo markaa la oran jiray Shoodhe dagaalkan hadda ka socda laascanoodna mar hore ayaa lagu kala adkaaday dagaalamaasha wantana way og yihiin inaysan u babacdhigi karin isla markaana aysan celi karin ciidanka militariga Somaliland markaana huwantana waxay ku dagaalamaysaa faraha adiyahooda dagaalka shalay ka dhacay laascanoodna huwanta waxa laga qabsaday laba fariisi markaasi ay lahaayeen markii dambana ciidanka militariga Somaliland waxay qabsadeenba qayb ka mid ah magaaladaasi laascanood dagaalamaasha wantana markii horeba waxay gudaha magaalada ay ka sameysteen fariisimo waaweyn waana sababta keentay in ciidanka militariga Somaliland ay isaga soo laabtaan mar walba ay gudaha u galaan sababtoo ah dagaalamaasha wanta gudaha magaaladaasi waxay ka dhex sameysteen dhufeysyo waaweyn oo markaasi ka muuqato fulinimo sidoo kale xitaa fooqyada iyo daaraha magaaladaasi waxay ka sameysteen dagaalamaasha wanta fariisimo ayagoo markaas halkaas saartay hubka shamshootarka iyo qubka waaweyn marka midaas ayaa keentay in ciidanka militariga Somaliland markasta inay ku soo laabtaan fariisimahooda si ay u jabiyaan dhexdana ugu jabiyaan dagaalamaasha wanta ku dhamaalaysanaya fooqyada iyo dhufeysida waaweyn ee fulinimada ah ka qoteen gudaha magaaladaasi dagaalkii laascanood iyo waxay ku sheegi jireen hila hartina markaan wuxuu ku soo ilaaday in laascanood ay ka dhigaan huwanta goob markaasi laga difaaca Garowe halkii ay ka burburi lahayd Garowena inay ka burburto laascanood waana qaacidada markaan ay isticmaalayaan huwanta markaasi ku soo duushay laascanood iyo Somaliland haddii ay gacantooda soo gali weyso laascanoodna markaan waxay u arkaan inay ka difaacaan Garowe haddii laga soo saaro ayaga laascanood waxa si toos ah loo tagi doonaa Garowe oo ah halka laga horinayo colaadda Somaliland iyo colaadda laascanood